Rumaysanow ama ha rumaysnaanin, maalin maalmaha ka mid ah waxay noqon doontaa maalintii ugu dambeysay ee nolosheena. Haddaba maanta fiidiyogan waxaan kugu soo gudbin doonaa dad nafsadooda ay ku badbaaday si lama filaan ah. Ku soo dhawaada muuqaalka. Sidaan wada ognahay, daryeelka carruurta ammayntooda aad bay u adag tahay, bal ila arka muuqaalkan cajiibka ah. Hooyadu waa mid gacanta ku sidata gabadheeda, waxayna ka soo baxayaan wiishka, balse gabadhu waa mid aad iyo aad u fudud, waxayna rabtaa inay fiiriso dabaqan saddexda biyaano ah. Balse gabadhu way ku dhici rabtay, waxaana badbaadiyay hooyadeed, waxaana ka qabatay lugta bidixda. Sidaasna waxaa ku badbaadiyay gabadha. Haddiisan ahaan lahayn hooyadeed saacadan, gabadhu waa mid ku dhacday dabaqan, nafsadeedana ay ku wayso. Dhammaantii waa gabar aad iyo aad u nasiib badan. Sidaan wada ognahay, inaad leedahay shaqo ama mihnad waa mid iska caadi ah, balse waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan nafsadeena. Ninkan kaamirista ah wuxuu rabaa inuu sawiro baabuur kasta oo tartamaya oo inta soo maraya, balse baabuurta ka mid ah ayaa dardar rabay, balse nasiib wanaag wuu ka badbaaday. Arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay, ninkan ma ahan mid shaqadiisa joojiyo oo shaqadiisa wuu sii watay. Dhammaantii waa arrin cajiib ah. Sidaan wada ognahay, waalidiintu way jecel yihiin carruurtooda, mana laga yaabo inay u geystaan dhibaato ama nafsadooda ay halis geliyaan. Balse aabahani asiga ayaaba halis gelin rabay nafsada wiilkiisa, sababtoo ah asigu ma ogeenin inuu cunugiisa hortiisa ku dheelaya. Balse arrinta la yaabka leh ee dhacday la arka. Nasiib wanaag, cunugu wuu badbaaday sababtoo ah dhexbartamaha ayuu cunuga ku dheelaya, ee geeska hadduu ku dheeli lahaa saacadan wuu dhiman lahaa. Markasta haddaad maraysid waddo tareen ah, taxadarkaada waa inuu bataa. Waa inaad iska fiirisaa dhan kasta si aad iskaga ilaalisid tareen kastoo soo maraya. Balse ninkani wuxuu moodaa halkaa tareen oo kaliya inuu mooday, sidaasna wuu ka maraya waddadan. Bal ila arka waxa ku dhici doono. Nasiib wanaag, ninkani wuu badbaadayaa sababtoo tareenka hal fiid ayay isku jireen. Dhammaantii nasiibkiisa aad buu u wanaagsan yahay. Haddaad ka heshay muuqaalka, la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.